beesha dhexe ee Puntland oo shirweyne isugu yimi Garowe ayaa baaq ka soo saaray beel sheegatay beel kale isla markaasina samaystay hoggaan dhaqan kulanka waxa isugu yimid hoggaanka dhaqan ee beesha dhexe oo isaga kala yimid gobolada Bari Karkaar Nugaal iyo Mudug bahaweynta ma jeerteen waxaan leeyahay cali xajiijina ilaahay baa ina la dhaliyay isku dhiig isku jid isku jabad dan wadaag iyo dad wadaag ilaahay baa ina ka dhigay sida ilaahay walaalo inoo ka dhigay baan waxaan idinku soo dhaweynaynaa walaalo dhaba xaqna idinku heliya xaq darana idinka heliya beesha cali xajiijina waxaan leeyahay walaalayaal ma jeerteen baa ka mitiin siyaasad iyo hiil iyo garab laakiin waxaan codsanayaa dhaqanka ku leexatay inaa gadaal uga baxdaan oo naamid noqota labadaas waa ii labada talo talada saddexaad waa ii baaqo waxaan leeyahay reerka sheegtay ma jeerteen magacana ku qaraabanaya sida Marya Cadda u sheegay waxaan leeyahay wartol baynu nahay intaynu isu jirnay inaan isu soo dhaaf 70 sano jiray arrintan oo kala aad ka soo qayb galaysaa meel lagu hayo isma lahayn waa arkaysaa laakiin ilaahay baa saamahayo waa arkayo meel ma jeerteen iyo tumaala lagu kala gurayo waa ii maanta aan arkayo isku leeyahay waxay way sheegteen waxaana jirta dhawaan waxaan maqli jiray waayada damo internetka iyo aalad soo korodhay waxa la jabsaday shirkad baa internetkeedii la jabsaday iyo dawlad baa la jabsaday qabaa'ilkii baa hadda la jabsanaya oo la isku kabaal qaaday ma jeerteen ama xajiijlana waxaan leeyahay nimanka isinkii guud oo xajiijla sheegtay yaa idin la fududaan ugaaskii beelaha daarood baan nahay inay yiraahdaan waxba uma jirto يا خفيف الأمر منا ولا لها يبيش أطمالات بان لا يهاي دب ولا لا بين النهاي لا حق بين السكول النهاي من وإسلام لماذا من نوع درس لماذا لا بد بين السكول حرمين له السكول حق بوره بين لنا ولا ليال أرين تاكل لابتا أبو فعلي قلنا كبحية من أقولان كرئيسك قبيل سيسا أما النسبة يستعدك لنا استعماشه adduunka kuma noola ama ha yaraado ama habad wax kasta ha noqdo dhamaadkii kulanka waxa laga akhriyay baaqay soo saartay beeshu annagoo ah nabadoonnada waxgaradka iyo aqoon-yahanada beelaha ma jeerteen waxaan halkan ku cadaynaynaa annagoo tix raacayna diiwaanka atirsiyaha ma jeerteen iyo sootiilada taariikheed in beesha cali xajiijle ay tahay mid ka mid ah beelaha maxamed hati kuwaas oo degan deegaanada Puntland suldaanka beesha cali xajiijle waa suldaan Cabdullaahi Ismaaciil Shukaan kaas oo bedelay ilaahay ha u naxariistee walaalkii suldaan Maxamed Ismaaciil Shukaan waxaan kale oo aan arrinkan laga tixraaci karaa warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiyihii ugu horreeyay ee dowladda Puntland ee gobolka Bari Dr. Maxamuud Caynab Maxamuud ee sumadeedu tahay fa sbaro ba kii bishii 2000 soona baxday 3 bishii 2000 ujeedkeeduna ahaa liiska isimada dhabta ah ee markaas ka diiwaan gashanaa xafiiska guddoomiyaha gobolka Bari waxaan kale oo cadaynaynaa in caleemasaarkii ka dhacay hotel Gacayte ee lagu caleema saaray Muxyidiin Cabdi Buuse inuu yahay ugaaska cali xajiijle ahaa mid baadil ah ayan waxba ka jirin maadaama ninkaasi aanu u dhalan beesha cali xajiijle iyo ma jeerteenba waxaan kale oo aan halkan ka cadaynaynaa
in ninka la yidhaahdo maxamed siciid ismaaciil dhahas oo sheegtay inuu yahay suldaanka beesha cali xijiijle ee deegaanada sool cayn iyo buuhoodle aanay waxba ka jirin isla markaana ay ilmo adeer yihiin muxyadiin cabdi buurte waxaa kale oo xusid mudan in aysan ka jirin wax saldano majeerteen ah deegaanada sool cayn buuhoodle waxaan uga digaynaa dadka caadaystay inay sheegtaan abtirsiiye aanay u dhalan oo weliba saldanad ku sheegtaan inay ka waantoobaan si aan dhibkii horay uga dhacay mid la mid ahi aanu uga dhicin waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan ciddii ay husayso inay sidaas ula socdaan. kaasi wuxuu ahaa bayaankii ka soo baxay beelweynta maxamed harti majeerteen.